السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهانتين به ملك استوجوكتان كسو دوادا ورك قلم نماء التلفزيون كتشيم وحايدين ورم دون تاني قواه إسري إبراهيم هذا نسر هبي قضى بدر كبدر كورونا وحا كمدة مدحوينها الصومالية مدن حسن شيخ محمود أي سوق عليه مقالة أردس أبابا سوق قيب قالوا شركة عالمية أيه نظام كعونة ضيه بيرها قرمدة مدوبي golaha xildhibaanada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa dhageystay isla markaana ansixiyay sanad miisaaniyadeedkii tagay 2017 wax qabadkiisii daawadayaal intaas waxay hayeen qodobadii warka ugu door karoona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa si uu uga qayb galo shirka caalamiga ah ee nidaamka cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay faafaynta warkaasina aan hore ugu soconno madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa si uu uga qayb galo shirka caalamiga ah ee nidaamka cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Boole waxa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Tamaskan Turune Danjire Burhanu Tasgaya oo ah wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ayaa isna goobjoog ka ahaa xafladda soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya shirka ayaa waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay dawladda Itoobiya iyo Talyaaniga iyadoo martida ka soo qayb galaya shirka ay hadda ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa dhanka kale ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa kulan qaabilaad ah la yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku xusay soo dhaweynta sidan hadal uu dhigay walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhawow shirka labaad ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan nidaamka cunnada iyo beeraha ee FAO oo Itoobiya si sharaf leh u martigelinayso waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed in Itoobiya iyo Soomaaliya ay wadaagaan xiriir taariikhi ah mid dhaqan iyo mid diblomaasiyadeed oo qoto dheer waxaan sii wadi doonaa inaan ka shaqeyno sidii aan u sii xoojin lahayn xiriirka labada dal Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa dhageystay isla markaana ansixiyay wax qabadkii sanad miisaaniyadeedkii tagay 2017 tirsi taariikhiyeedka Itoobiya faafaynta warkaasina aan hore ugu soconno golaha xildhibaanada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa dhageystay isla markaana ansixiyay warbixinta wax qabadka xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadeedkii tagay 2017 madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa golaha ka horjeediyay warbixinta wax qabadka xukuumadda golaha xildhibaanada ayaa warbixintan wax ka weydiiyay su'aalo waxayna sidoo kale soo jeediyeen talo bixinno kadib markii madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar uu ka jawaabay su'aalihii ay soo jeediyeen golaha xildhibaanada ayaa cod buuxa lagu ansixiyay wax qabadka xukuumadda ee sanad miisaaniyadeedkii 2017 golaha lixaad ee xildhibaanada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu furmay tababar ku saabsan kor u qaadida garaadkooda siyaasadeed kulan ay iska kaashadeen macadka Hiraad Institute iyo CRBB oo looga hadlayo doorka saxaafadda oo ay ka qaadanayso koortaga colaadaha iyo dhisidda rabada faafaynta warkaasina aan hore ugu soconno kulan ay iska kaashanayeen macadka Hiraad Institute iyo CRBB oo looga hadlayo doorka warbaahinta saxaafadda ee ka hortaga colaadaha iyo dhismaha nabadda xilligan casriga ah oo lagu qabtay magaalada Jigjiga kulankan uu furay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer federaal iyo heer deegaan iyo sidoo kale bahda saxaafadda dalka kulankan ayaa lagu soo bandhigay doorka warbaahinta ku leedahay ka hortaga colaadaha iyo dhismaha nabadda gaar ahaan xilligan casriga ah madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in saxaafadda ay door muhiim ah ka ciyaarayso ka hortaga colaadaha iyo sidoo kale dhismaha nabadda warbaahinta ayaa waxaa looga baahan yahay inay si muuqata uga qayb qaataan wacyigelinta bulshada iyo horumarinta isfahanka bulshada
daawadayaal waxaa si toos oo la socoteen warka galabnimo ee telefishinka JMN waxaa idin waramaysay anigoo ah Isra Ibrahim Aadan Israhab intaan warka xeeb kulmi doono waxaan kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh